ninkii soo dadaalay ee soo shaqeeyey iyo kaan soo dadaalin kii dad wuxuu soo qabtay iyo kii naftiisa u soo shaqaystayba taasaa ina wada horan dhammaanteen meydka allah u naxariistay korneel cusmaan maxamed jalle oo maanta masjidka Preston lagula dukaday salaadii janaasada waxaana salaada janaasada tujiyay sheekh cabdinuur oo kamid ah imaamyada gobolkan Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله عملكنا وحا ugu fadli badan kuba ku ka manfaca badan yahay dadka ka faa'iideysanaya ay ka badan yihiin ya fadli badan marka isagana Allah u naxariisto inagana Allah ina waafajiyo sida ay danteena ku jirta ee aakhiri adduumadeena ku jirta Allah ina waafajiyo aynu dhiiri gelino isagana nabigu wuxuu ina leeyahay ha loo duceeyo qofka walaalkiina sidaan hadda fahansanay waxa weeyaan aaskiisa halkan ka dhici maayo marka meel kale uu ka dhici doona janaasooyinka loo farabadan bidinilaahi tacaala waa lagu tukan doona dad badan baa ku tukan doona inaga badan saan qiyaasayo inagu laakiin waynu u ducaynaa sidoo nabigu inoo sheegay dhowr intaasoo ruuxay ku tukato intaasoo safna ay noqoto in laga aqbalayo shafaacadu ilaahay inoo sheegay inagu shafaacaynu nahay shaqadeena waxa weeye inaynu ilaahay u barino inuu ilaahay u dambi dhaafo inaga hawsheena waa intaas Allah u dambi dhaafo Allah u dambi dhaafo Allah u naxariisto intii uu ka tagay xilba inaga saaran inaynu iyagana garab istaagno oo aynu uguna ducayno kana guda sunnada qalbigooda Allah kabo iyagana qalbigooda Allah kabo sabirka Allah siiyo sabirku waa wax weyn markii ilaahay ruuxa jeceshahay uu ka qaado sabirku waa ciwadka ilaahay uu ku siiyo uu kugu abaal marinaya ciwadka khayr qaba Allah siiyo musiibada ku dhacday ajrigeeda Allah siiyo wax khayrana Allah ugu bedelo inagana meeshu ka baxay wax khayr qaba Allah inoo geliyo wasiirkii hore ee maaliyadda cilmi faarax nuur wabi iyo aqoon-yahano kale oo aqoon durugsan u lahaa marxuumka Allah u naxariistay ayaa ka tacsiyay geeridiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta joognaa janaasada koowaad ee Allah u naxariistay marxuum cusmaan maxamed jalle ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan qoyskii eheladii iyo asxaabadii iyo macruufadii iyo dadkii uu ka geeriyooday Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan samir Allah ka siiyo asagana ilaahay jannatul firdaws ugu bishaareeyo cusmaan dabcan nin taariikh dalka Soomaaliyeed kula buu ahay nin soo shaqeeyay buu ahaa nin wax badan u soo qabtay dadkan iyo dalkan buu ahaa ma hakran aqligiisa iyo maskaxdiisa iyo xooggiisa iyo tabartiisu intaba wax badan oo uu qabtay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddo dheer ka soo ay duqa magaalada Muqdisho marka insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa in ilaahay goynaa waaxda oo qabrigiisa uu uga dhigo xufratul janna dambigiisana oo dhaafo dadka Soomaaliyeedna samir guud Allah ka sii jazaakumullahu khayr waxaan maanta tacsi u joognaa Cusmaan Maxamed Jalle Allah u naxariisto qabrigiisana ilaahay mataqaanaa ha waasiciyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay meeshuu ka baxay ilaahay dad khayr leh noo soo geliyo dhammaan eheladiisii waalidkiis walaalihiis kulli waxaan leenahay ilaahay mataqaanaa dambigooda ha dhaafo annagana ilaahay mataqaanaa gadaashiisna ma fidneeyo marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ninkaas mataqaanaa yacni ummadda Soomaaliyeed ka wada baxay ilaahay mataqaanaa hanoo fududeeyo isagana ilaahay qabrigiisa u waasiciyo ilaahay ha u naxariisto dalkana ilaahay maanta tacsi weyn baa taalla nin sharaf la dhintay ilaahay ha u naxariisto taariikh laha soo maray Soomaaliya qiyaado fiican ka qabtay waqti fiican ka soo tagay saaxiib weyn oo mukhlisa u ahaa dawladda Soomaaliya iyo dawladaha Carbeed oo dhan ilaahay waxaan ka baryaynaa caruurtiisii ahalkiisii iyo dalkiisiba in asagoo fiican si fiican loogu soo dhaweeyo loo xabaalo maanta waxaan joognaa geeridii Cusmaan Maxamed Jalle oo ahaa haliyay ummadda Soomaaliyeed u soo shaqeeyay waxaan leenahay maanta waxa jinaasa lagu dukaday dhawaan waxa la rabaa in wadankii hooyo loo qaado waxaan halka uga tacsiinay dhammaan ummadda Soomaaliyeed anigoo uga tacsiinay geerida ku timid haliyay ummadda Soomaaliyeed Cusmaan Maxamed Jalle dadka Soomaaliyeed dhammaan qaasatan dadkii iyo qaraabadii
iyo ehelkii uu ka geeliyooday oo dalkii dibadda jooga waddankii hooyo Cismaan Maxamed Jaalle Allah u naxariisto. samir iyo iimaan dhammaan Allah naga siiyo walaalkeen Cismaan Maxamed Jaalle ubadkii iyo eheladii iyo Soomaalida uu ka baxay samir iyo iimaan Allah ka siiyo asagana jannatu firdaws Allah ugu bishaareeyo. halkaan maanta joognaa waa Melbourne magaalada Australia dalka Australia adee waa meel loo wada socdo waa loo kala horeynaa samir iyo iimaan Allah naga siiyo samir iyo iimaan Allah naga siiyo isagana Allah u naxariisto janna firdaws Allah ka waraabiyo. anigoo Daadir Xarane waxaan maanta ka soo qayb galnay inaan janaaso ku tukano Allah u naxariistay adeerkan Cismaan Maxamed Jaalle sinay anaga ka imaanay ugu imaanay inaan janaasada ku tukano كل أذر لقوم الدوغا ماشان وحلو دوغا سومالي لكن أنا غير أستراليا كلمة إلا يوروب أمريكا وغير أمريكا عربها ميلو بالغي ماذي إن معرتي جناسة كنت كنا أدعينه دوغت سومالي كده عيسى كل أصغرنا الله سمينا لكن أنا غير أستراليا دانا تدكي غيري سيدي قولي وتابطان كم الحين بركة الله ونحريست أذر. السلام عليكم شعبك الصوماليين مسلمين دتك أردن وحنوجو تعسيننا adeerkeen Jaalle oo halkan magaalada Melbourne ku geeriyooday anagu waxaan ahay dadka degan magaalada Sydney waa maaragtay tacsi weyn oo shacbiga Soomaaliyeed soo gaartay eheladiisii meel walba ay dunida ka joogaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay u naxariisto adeerkeen Cismaan Maxamed Jaalle sabir iyo iimaan ilaahay dhammaan naga wada siiyo. جنازتنا كنت كناي ودعينا إن شاء الله. عثمان محمد جاله وحوها هجامية كتر سنة قوله سنة توردة أما قوله سنة كعانكة وحوها برشة سومالية وتقانة وناقنا كوب تقاني مركا وحونا سومالي حلال بدن حلكي كلها سنة مركي كمن غشة وحكلوا ويليسي وحوها دغ مجالنا marka gobolka Banaadir wax weyn buu ka soo qabtay meel fiican buu soo gaarsiiyay wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo dhan ay ixtiraam iyo wanaag u hayso waxaan Ilaahay uga baryay jannadii inuu Allah ka waraabiyo adduunkana maartay awlaadiisa Ilaahay ku dhooro. halkan waxa ku jiro meydkii ma sha Allah aabihii qaranka ummadda Soomaaliyeed ka geeriyooday waa Cismaan Jaalle oo la wada yaqaano marka ilaahay waxaan ka baryaynaa samir iyo iimaan inuu ummadda Soomaaliyeed ka siiyo qaasatan ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo dadkiisa oo reer Hiiraan ah marka wuxuu ahaa aabba qaran aabba Soomaaliyeed marka insha Allah waa wada duceynaynaa. anigoo ah Cabdicasiis Axmed waxaan u tacsiyeenaynaa adeerkayni Jaalle oo ku dhintay magaalada Melbourne ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo آخرتنا إلهي سما الله كيلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Maxamed Xuseen Siyaad oo ku magac dheer Maxamed Soomaali Dr. Maxamed Xuseen Siyaad maanta halkan waxaan ku kulanay janaasadii abtigay Cismaan Maxamed Jaalle ilaahay ha u naxariisto nin Soomaaliyeed oo ahaa nin qiimiye qaayal ayuu ahaa nin Soomaali oo dhan u siman tahay ayuu ahaa sida looga soo qayb galay aad garanaysaa wuxuu ahaa waddanka Soomaaliyeed dadka qiimaha ugu fadhiyay oo horumarka weyn gaarsiiyay inta aynan qabiil iyo waxaan loo joogay aanan u kala burburin waxa abtigay aan ku xasuusanayaa inuu afkiisa ka yiri Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa nin wadaniya waana aniga shakhsiyad ahaan wixii aan qabay maanta masaajidka kan Preston Mosque oo ay Soomaaliya oo dhan isugu timid waxaan janaasada ku dukanay abtigay Cismaan Maxamed Jaalle ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu ilaahay ku manaysto meel laga jecel yahay ayuu ka tagay in meel laga jecel yahay lagu soo dhaweeyo. maxamed cabdi xaaji maxamed waxaan halkan u tacsiyadeynayaa Cismaan Maxamed Jaalle ehelkiisa iyo qaraabadiisa oo ahaa nin nagu ah qaali tol iyo xididba oo caruurtana aan abtunahay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u naxariisto qabriga u nuuro in badubu dhibaatada ilaahay u naxariisto ahlu janno ka dhigo nin wanaagsan buu ahaa tol iyo xididba waliba u soo ducaynaa markasta aad iyo aad ilaahay u naxariisto aabbo waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan siday aaska uga soo qayb galeen aabbana waxa la wadaa Soomaaliya waxa kale oo u mahad celinayaa dadka reer Melbourne siday u dhan yihiin dawladda Soomaaliyeed aaska qaran ay loo fidiyay aabbo marka ilaahay khayr ha inoogu dhameeyo
samir iyo iimaanna ilaahay aabbaha naga siiyo dhammaanteen allaha u naxariistee korneel cusmaan maxamed jalle oo ku geeriyooday magaalada tan Melbourne ayaa lagu wadaa in la geeyo magaalada Muqdisho halkaas oo aas qaran lagu sameyn doono cusmaan maxamed jalle waxa uu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxana uu geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 84 sano waxana uu ifka kaga tagay 17 caruur oo hadda nool iyo hal xaas Ibrahim Umar Baafe wararka Somali TV magaalada Melbourne dalka Australia